aniga waxay ila tahay ama aan sida oo shuruucda hadda dalka ku qoran xiriir sharciya oo ay goyn karaan ama ugu qoran mandate-kooda dawladda ama ay haki karaan ama ay joojin karaan ama ay waagoyna dhihi karaan horta ma jiryo. marka waxaan u arkaa niman uun waqtigoodii inta dhammaaday ayaga laftirkoodu cabsi iyo welwel xoogaa ay hayso 6 maalmood dalxiis iyo dood u joogay meesha la yiraahdo Kismaayo kadibna yiri waxbaan iska soo saaraynaa wixiina xataa qof oo loo yara iyo qof akhriyay dastuurka Soomaaliya iyo waajibaadka ay leeyihiin iyo waxa ay joojin karaan iyo waxa aysan joojin karin xataa u sheegay ma jiro. marka waan hakinay waan joojinay waa luqad oo dawladaha adduunku ay mararka qaar ku dhaqmaan iyo diblomaasiyadda caalamiga laakiin ma jiro dal gudihiis la leeyahay waxaan joojiyay wada shaqayntii dawladda iyo kana joojiyay iyo gudaheed kumana qorra shuruucda dalka waxa ka sii daran intaas oo mararka qaar dadku ay isweydiinayaan haddii dawladda federaalka ay xiriirkeeda hakinayaan markii la lahay soo doorta xildhibaanada labada aqal ama soo dira federaalka u soo dira ee ka imaanaya goboladaas ayay hakin lahaayeen oo markaas ay dhihi lahaayeen waxaan hakinaynaa oo anagu aan samaysanaynaa baarlamaan noo gaara iyo aqal saro noo gaara iyo wixii noo gaar. laakiin mar hadday soo direen oo accept gareeyeen oo dawladda federaalka hay'adaheeda ay dhisan yihiin anigu ma haayo sharciyad ama ma akhrin ama ma arkin intay qola meel fadhiisato ay dhihi karto xiriirkii aan joojinay. waxaa ka sii daran intaas madaxda hadda isugu tagtay ama mas'uuliyiinta Kismaayo waxaa la rabaa markii aad hadlaysid cidda aad matashid iyo cidda aad magaceeda ku hadlaysid iyo cidda xilka ku saarata inay jirto. waxaan ognahay hadda communique ay soo saareen kadib dadkii kale oo ka dambeeyay iska dhaafee macal ku xigeenadoodii in badan oo kamid ah inay yiraahdeen waxaas wax ka jira lama arko nuguma matalaan baarlamaanadoodii inay yiraahdeen nuguma matalaan oo ma jirto ayada laftirkeedu hadleen oo shalaa ugu dambeysay ay ka hadlayeen. marka maxaa la dhihi jiray ay oo waa ka bariyay. marka waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan sida oo systemka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo markastoo waqtigu dhamaado la iska rabo doorasho iyo la xisaabtan inay horta marka hore intaysan dawlad federaal imaan goboleedoodii inta ku laabtaan amaanadii loo dhiibay xisaab celinteedii ay dadka horta u gudbiyaan ama ay u sameeyaan. waxaa nasiib darro ah nin madaxweyne sheeganayo gobolkii uu ka yimid xataa aan tegi karin ama aan ku laaban karin hadduu tagana muxuu ahay aan magaaladii ka bixi karin oo tagayay oo maamul goboleedaan ah. marka maamul goboleed inta laga daayo mararka qaar waxaa fiican in la yiraahdo madax magaalo la yiraahdo ama madaxweyne magaalo haddii oo sida ay rabaan ay u sheegtaan madaxweyne magaaladooda loo daayo. sidaasay horta ku qumaneed magacaan laga khalday oo la leeyahay muxuu ahay waa maamul goboleed.